macmiil salaam app wuxuu idiin soo kordhiyey crypto exchange waxaad si fudud oo ammaan ah lacagtaada ugu dhigan kartaa USDT ama aad uga soo ceshan kartaa USD dollar haddaba si aad salaam app ugu xirato USDT walletyada kala duwan sida Binance ugu horreyn la soo deg salaam app oo dooro exchange feature kadibna guji add crypto wallet dooro wallet network BNB Smart Chain BEP20 USDT geli halkan wallet name-kaaga geli halkan wallet address-ka kugu qoran Binance-ga adiga oo ka soo dhex koobiyeenaya gudaha Binance app ugu dambeyn baasti ku dhig halkan ugu dambeynna guji add wallet hadda waxaad lacagta kugu jirta kontadaada u bedelan kartaa USDT ugu horreyn soo fur salaam app oo dooro exchange feature kadib dooro USDT wallet-kaaga dooro buy USDT kadibna geli cadadka lacagta aad rabtid geli faahfaahinta kadibna guji continue ugu dambeynna guji confirm process hambaliyo hadda daqiiqad gudaheed ayaad Binance wallet-kaaga dhigatay USDT salaam app kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka